marka aad maqasho kulanka El Clasico durba waxa kugu soo dhacaya ciyaarta ugu adag dunida ee dhaxmarta Real Madrid iyo kooxda Barcelona. haddaba goorma ay soo bilaabatay in la ciyaaro kulmadan loo yaqaano El Clasico Barcelona iyo Real ay ku wada kulmaan 17 Febraayo 1929 ayay markii ugu horeysay Barca iyo Real ay wajahaan waxaana kulankii ugu horeeyay uu ku soo ilaaday 2-1 oo ay ku badisay kooxda Real Madrid. kulankii ugu dambeeyay labadan kooxood waxa uu dhaxmaray 28 Oktoobar 2018 kulankaas oo ku soo ilaaday 5-1 oo ay ku badiyeen Barcelona waxaana ay ahayd xasuuq baan oo loo geystay kooxda Los Blancos-ka xilli Barca kulankaas uu ka maqnaa furaheeda Lionel Messi. ciyaaryahanka ugu safashada badan kulamada El Clasico waa laacibka lagu magacaabo Manolo Sanchez kaas oo saftay 43 kulan. laacibka ugu goolasha badan kulamada El Clasico waa Lionel Messi waxa uu dhaliyay 26 kulan ciyaaraha El Clasico. Real Madrid ayaa gaartay guushii ugu weyneed kulamada El Clasico June 19 sanadii 1943 waxaana kulankaas uu ku soo ilaaday 11 gool iyo 1. tartamada rasmiga ah Real Madrid iyo kooxda Barcelona waxay wada kulmeen 238 kulan. 95 jeer waxaa badisay Real Madrid 93 jeerna kooxda Barcelona halka barbardhac ay galeen tiro 50 jeer ah. balse guud ahaan isaragyada kale marka lagu soo daro Barcelona iyo kooxda Real Madrid Barca ayaa kooxda guulaha badan. tartamada guud waxay labadan kooxood ay wada kulmeen 272 kulan. Barcelona waxay badiyeen 113 jeer halka Real ay badiyeen 99 jeer waxaana ay barbardhac galeen tiro 60 jeer ah. 5 ciyaaryahan ayaa rekoorka hat-trick ee kulamada El Clasico kuwaas oo dhaliyay min 2 jeer hat-trick waxaana kamid ah xidigahaasi Jimmy Lozano, Santiago Bernabeu, ciyaaryahan Paulino Alcantara, Frank Busquets iyo Lionel Messi. ciyaaryahanka ugu caawinaad badan kulamada El Clasico waa Lionel Messi kaas oo sameeyay 14 caawinaad kulamada El Clasico. haddaba su'aasha miiska saaranaya yaa guuleysan doona Real Madrid iyo kooxda Barcelona